11 maalmood baad galley keliya cunayseen shiidan oo biyo laga dhigay rag baa cagihii dildilaaceen isxoqay ama boodyuhu isxoqeen oo dhaqaaqi kari waayey arrintu way cakiran tahay waxaan rabaa in adiga ku daayay bal soo dhowow mahadsantahay walaal cabdixafiid waana dhowahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbo joogaan waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta waxaan tahriib lagu yidhaahdo soomaalidu waxaad mooddaa haddii la yidhaha war waxaanu way xun tahay ka joog inayna ciyaartaa kaga joogayn laakiin qofku markuu indhihiisa wax ku arko kolkaad aragto midabta koor kolkaad aragto dhibaatada meesha taalla kolkaad aragto inaadan dad ahaynba inaan lagu arag markaan bad horta xaqiiqda ogaan kartaa siiba gabdhaha soomaaliyeed weligay gabadh soomaaliyeed ama gabadh islaam ah ama tu kaloo gaal aba kulama taliya inay waddadaa soo marto dhibka ugu weyn gabdhuhu ku dhaca ninka ragga waxaa la yidhaha ka dhaliya in baan soo marin dhib waa ku dhacayaa laakiin waa kala dulqaad badan yihiin laakiin waxa ugu badan oo aan ka soo kaban karin waa gabdhaha waa gartay cabdilaahi waxaan rabaa arrintaas gabdhaha inaan dul istaagno qaybta dhexe ee barnaamijka haddii ilaha yidhaahda iyo waxaad goobjooga u ahayd foolxumo iyo bahdil iyo cunsurnimo iyo sharaf ka dhac ahaa laakiin waxaan rabaa markaad ka dhaqaaqdeen eritrea idinkoo 11 maalmood sii socday 4 qof baad ahaydeen maxaa dhacay marka hore waxaan ka soo lugeeyey meesha la yidhaahaa jabuuti magaalada jabuuti caasimadda u ah aniga wiil kalaan ahayn waxaanu soo gallay lugtii eritrea xuduudkeedaa soo istaagnay waana la soo qaaday eritrea si fiican bay noo soo dhoweysay meel casab la yidhaha baa nala keenay waana laga qaaday meel musawac la yidhaaho xerada qaxoontiga soomaalida makulli ku taallaan tagnay haddana 6 habeen baan joogay 6daa habeen waan iskaga tagnay aniga 3 wiiloo kalaa heshiinay oo nidhi niyow meeshan aan iskaga tagno meeshaas aanu marro ilaa liibiya aanu halkaa marro waayahay go'aan baan sidii ku gaadhnay niman baanu la tashanay waxaan nidhi maxaa sahay loo qaataa maxaa dhar loo qaataa maxaa kaba meesha loo qaataa dadkana markuu meel qaxoontiga joogo nin walba eritreana qaxoontigeeda waad aragtay adduunka qaxoontiga ugu macnihii ugu tabarta yar baa jooga waxaana lagu yidhi niyow horta kaba dacasa qaata macawiso qaata waayo surwaalka waa isgoynaysaa dhar ha qaadanina dharkiinoo dhan iskaga taga raashin wax basal la yidhaaho etoobiyada aad looga isticmaalo qaata waayahay baan nidhi meel baan tagnay waxaan nidhi min 3 kiilo ilaa 4 kiilo oo basa ah baan rabnaa baan nidhi waayahay baan nidhi waxaana loo diyaariyey galley la shiiday